بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. halkan waxaan rabaa inaan fariin aan ka soo jeediyo anigoo ka mid ah shakhsiga odayaasha degmada Burqad ah ee beesha reer Waskushin. Fariinta waxaan u jeedinayaa cid kasta oo nabad jecel ama xilkasa xukuumadda federaalka deegaanka Soomaalida gobolada degmooyinka beesha caalamka cid kasta oo wax garaba oo arrinta dhibaatada ay ka dhigto ayaan fariinta u soo jeedinayaa. dhibaatadan ka cabanayna waxa weeye beesha reer Isxaaq ee laga xukumo gobolka Jarar xagga dambana uu ka taagan yahay Mustafa Cabdi. waxay beeshaas lagu haysaa annaga iyo dhammaan cidda aan ka tirsanan beesha reer Isxaaq ee soo gasha gobolka Jarar sida Burqad iyo Axmedow iyo Araasoo dhammaan waxay ku sameynayaan weerar iyo dhulbool iyo deegaameen cusub oo ay cagta ku dhawaaqay in la mamnuucay oo u fasaxay iyaga si gaar ah waxay ka sameeyeen aaga Burqad 8 qabalay oo beelaha kale ay ka mamnuucay iyagana u khaas. sidaa darteed waxay ka soo gudbeen meelihii beelaha kale suuminta la lahayd sida Xandiyo waxay ku sameeyeen oo aan si aan fiirsanayn ay u oolaayeen beerihii bulshada Burqad ay lahayd. markay beeshii beeraha lahayd ay ka hadashayna waxaa lagu sameynayaa in cabashada laga qaban waayo in markii tallaabo ay qaataan la handadayo. marka saa daraadeed waxaan ka cabanaynaa xukuumadda gobolka ta deegaanka in cagta xukumo iyo dhammaan magaranaysaa ciddii tala la wadaagtay. marka waxaan anagu beesha caalamka iyo dhammaan waxay wax garad u cabanaynaa in arrintaas xal loo helo. wabillahi tawfiiq.